Somaliland is the Israel of Africa. And we want Donald Trump to recognize your beloved country and realize in the same way Israel is the proxy deterring radical Islam. Somaliland waa Yahuuda Afrika ayaa si cad u sheegay wadaadka xagjirka ah ee Mike Evans daqiiqadaha uu ciro guddoonsiinayo calaamad diimeedka Yahuuda isagoo diintiisii Islaamka ka saaraya xilligan markii ugu horeysay ururka Friend of Zion oo ah urur xagjir ah ayaa wuxuu banaanka keenay in Somaliland wax la yiraahdo aysan dal xor ah u aqoonsan waliba Cabdiraxmaan Ciro hortiisa iyo ujeedooyinka xilligan ay ka leeyihiin ninkan dhalinyarada ah Hargeysa jooga sida la ii sheegay hadalladii uu ku hadaaqayay ee ahayd annagu falaasho wax la yiraahdaan oo Yahuuda qayb ka tirsan ah oo Itoobiya degan ah aniga waxay ila ahayd kaftan laakiin si hadalkiisa waxa xaqiijinayo wadaadka xagjirka ah ee gudoomiyaha u ah ururka Friend of Zion ninka loo yaqaan Mike Evans oo Cabdiraxmaan Ciro hortiisa ka sheegay inaan dal xor ah loo aqoonsan iyaguna ay yihiin Yahuuda Afrika ama iyagu ay yihiin ama laga doonayo inay xambaaraan mashruuca sahyuuniyadda ee geeska Afrika iyo Afrikaba balaarka ninkan dadka qaar baa mooday inaan Yahuuda ixtiraafka ku jeclaanay war ixtiraafka ka hor baan Yahuuda jeclayniyo ixtiraafka ka hor annagu Yahuuda waan jeclay maragyo markhaati bay leedahay inaan Yahuuda qabla ixtiraafka baan jeclayn annagu dhalashaa naga dhaxaysa reer bini Israa'iil waxaanu nahay falaasha Israa'iiliyiinta madmadow baan nahay iyaguna waa Israa'iiliyiinta cadcad no difference wakaa waxa apologize ma jiro ninna sababtiisa apologize kama waad ku adkaysanaysaa waan ku adkaysanayaa ay Israa'iil arrimahaas kaftan ayaad moodaysaan saacadan ayuu ururka xagjirka ah ee Friend of Zion wuxuu baahiyay ujeedooyinka rasmiga ah ay rabaan in markaasi ay ka leeyihiin maamulka Hargeysa waxay diintii ka saareen Islaamka Cabdiraxmaan Ciro iyagoo guddoonsiiyay shahaadad diimeedkooda ama calaamad diimeedkooda shaydaanka ah ee khatarta ah waxayna markii ugu horeysay banaanka keeneen mawduucyada sirdoon ee ku gadaaman sababaha Israa'iil ay halkan damacu uga jiro ama ay doonayaan waliba waxa ma qarsanayaan oo Mareykan waa bareer waxayna aaminsan yihiin in wax walba xilligan ay gacanta ugu jiraan Cabdiraxmaan Cirana uusan ahayn in xilligan wax ka diidi karo ma la sixiray muuqaalay ka duubeen kala niman waxoodu isugu aadan yihiin ayay u muuqdaan iyagoo banaanka keenay waxa rasmiga ah ay doonayaan muuqaalkan xilligan ayay baahiyeen waana mid ka qabsaday xilligan baraha internetka waxa igu soo dhacday markii dadka Soomaaliyeed waxa laga yaabaa inay la yaab ku noqoto dhacdooyinka xilligan dhacayo balse culimada Soomaaliyeed iyo waaye aragga Soomaaliyeed waxay ka hadleen dhacdooyinkan 34 sano ka hor balaan dib idin xusuusiyo intaan idin la wadaagin turjumaada khudbadaha xilligan ay baahiyeen ururka Zionist of Friend aan dib idin xusuusiyo dardaarankii diimeed ama khudbadii diimeed ee uu jeediyay caalimka Soomaaliyeed ee Boqolsoon 34 sanadood ka hor sanadkii 1991 isagoo xilligaasi Soomaalidu u tilmaamay in mashruuc Yahuudeed uu yahay maamulka Hargeysa ee gooni goosadka ku dhawaaqay xilligaas wax badan bay yiraahdeen Somaliland waan goosanaynaa waqooyiga danta la lahayn Yahuud ayaa loo goynay ayay ahayd waa soo cadaatay warar badan baana soo bixi raba gobollo badan ayaan maqalnay in Yahuud loo goyn rabo iyo qolo kale 22 bisha 12aad waa habeenkii Jumcada 1991 waxaa laga dhageystay idaacadda Yahuuda oo loo yaqaan BBC waraysi lala yeeshay nin gaal ah oo Kirishtaan ah waraysigu waxa uu dhacay sida soo socota warku waa war aad u xun marka dhageysta ninka xukunkiisa oo maantiin doona hadii Rabbi qadaro subhanahu wa ta'ala wariyaha idaacadda Yahuudu wuxuu ku yiri gaalka ka socda aan qolada Kirishtaanka magacaaga maxaa la yiraahdaa wuxuu sheegtay in bulxan la yiraahdo iyo magac noocaas u eg wariyaha idaacadda Yahuudu wuxuu ku yiri xageed ku dhalatay wuxuu sheegtay gaalku inuu ku dhashay waqooyi galbeed
wariyaha idaacadda yuhuudda wuxuu yidhi waqtigee baa tagtay dalka yuhuudda iyo meelaha aad joogtid oo aad waxyaalaha qaar ka sheegaysid ood ka soo baxday 1987 ilaa 1988 sidaas ayuu sheegay waxaa sheegay saas ninkii gaalka ahaa wariyaha idaacadda yuhuuddu wuxuu ku yidhi yani markuu sidaa ku yidhi hadda ma waxaad haysataa yani diinteed haysataa wuxuu ku yidhi gaalkii masiixiyadda ayaan haystaa wariyaha idaacadda yuhuuddu hadalkaas ayuu ninka sii weydiiyo wuxuu ku yidhi xisbiga aad yani hogaaminayso ujeeddadiisu waa maxay xisbigaas oo ah christian waa xisbi christiana oo yani ka jira somaliland wuxuu ugu jawaabay waxaan doonaynaa inaan ka qayb galno doorashada iyo dawladda laga dhisayo somaliland inaan ka qayb galno ayaan doonayaa sidaas ayuu yidhi ninka ka socda qolada gaalada ah wariyaha idaacadda yuhuudda warka ayuu ku soo celiyey wuxuuna markaa weydiiyey imise ayay la eg tahay inta aad haysataan kalsooni iyo dad gaalku wuxuu yidhi somaliland dadka u dhashay qoyskii 2 nin ayaan ku leenahay markaan ugu liidanana 1 nin ayaanu leenahay sidaas ayuu gaalku ku jawaabay waxaana u fiirsa hadalka uu ninka gaalka oranayo wuxuu ninka asaga ku yiri oo yani ma waxay haysataan kalsooni badan haa buu yiri maxaa yeelay markaan ugu yaraan qoyskii waa 1 ama waa 2 qofood sidaas ayuu u sheegay bal waxaa jira 350 caruur gaaraysa oo lagu tababaro dalka yuhuudda lana baro diinta yuhuudda idaacadda yuhuudda wariyaheedu wuxuu yiri oo ilmahaasu diintay haystaan ma diinta yuhuudda gaalkii wuxuu yiri haa diinta yuhuudda ayay haystaan wuxuuna markaa sheegay gaalku in ilmaha la soo qaaday 1987 ilaa 1988 oo halkaa la geeyey waddanka yuhuudda gaalku wuxuu yidhi carruurtaa waxaa gacanta ku hayda gabar soomaaliyeed oo loo yaqaano luul ayaa gacanta ku haysta oo maamusha tarbiyadooda iyo waxooda waxaana si dhaba loo bari doonaa diinta yuhuudda dibna waa loo celi doonaa somaliland waxay noo diideen buu yidhi inay naga qayb geliyaan dawladda gaalka ayaa sidaas sheegay markii hore laakiin hadda waa naloo ogol yahay saasaa meesha ka muuqanaysa waa naloo ogol yahay somaliland waxay nagu dhaheen dawlad diin baan ku xakumi doonaa sidaas ayaana halkaa ka soo caddaatay wax badan bay yidhaahdeen somaliland waan goosanaynaa waqooyiga danta lalahayna yuhuudda ayaa loo goynaya ayay ahayd waa soo caddaatay warar badan baana soo bixi raba gobollo badan ayaan maqalnay in yuhuudda loo goyn rabo iyo qolo kale waxaan halkaa ka soo caddaatay somaliland inay arrintaas ku jirto meesha waxaa ninka isaga uu sheegay oo yani gaalka ah markuu yani arrintaa ka warramayey magacyadiina miyaad beddesheen ayuu yidhi wariyihii idaacadda yuhuuddu wuxuu ku yidhi haa magacyo xunxun oonan sheegi karin magacooda ayuu sheegay ninka asaga ah wuxuu yidhi oo wariyaha idaacadda yuhuuddu xibna miyaad ka tihiin dawladda somaliland wax ma ka tihiin wuxuu yidhi gaalku haa weliba golaha wasiirada iyo baarlamanka ayaan dad badan ku leenahay wa ficlan siday u hadlayeen waa uu egyahay warkaasu somaliland sidaas ayaa jirta aynan doonaynaa inaanu ku yeelanno saldhig iyo meel hagaagsan ayay yidhaahdeen waqooyiga hargeysa oo kale sida oo kale waxaa la ii sheegay inay jiraan 20 nin oo aad isugu xiran oo ka shaqaynaya ayaguna inay wax noocaas oo kala sameeyaan dad badanna gacanta ku haya oo ku dhashay galgaduud gobolka loo yaqaan say ayaguna sheegteen meeshaa waxaa idinkaga soo baxay waxyaa badan ama ka hurda ama hurdada ka kaca ugu sheegayo oo ka imaanaya yani Australia qayb koox yar oo joogta iyo Mareykanka oo u soo socda Soomaaliya gudaheeda gobolada dhexe iyo Somaliland dawladda lagu magacaabo halka laga sheegayo waxaa kaloo la sheegay inay jiraan saraakiil badan oo ka soo degi rabta bariga oo loogu talagalay inay dhib badan geystaan waxaa kaloo la sheegay inay jiraan noocaas oo kale oo imaan raba koonfurta ayagoo ka bilaabi raba meesha imaan rabaan beledka Buuraxaawo meel la yiraahdo beled xaawo agihiisa waxaana lagu talagashan yahay in la laayo niman badan oo culimo ah oo halkaa jooga qabiilka halkaa joogana u badan runtii waxaan si rasmi ah ugu jirnaa waqtigii fitanta ee uu ka digay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhexda iyo bartamaha ayaan xilligan uga jirnaa waa yaab iyo makaag taariikhdu waa 17 Juun 2026 saacad ka hor muuqaalkii adduunka ka yaabiyay ayay daah qaadeen ururka Friend of Zion oo Cabdiraxmaan Cirre guddoonsiiyay calaamad diimeedka shumaca 7 farood leh ee yuhuuddu ay caanka ku tahay diintooda iyo jiritaankoodana muhiim u ah waa sawirkan iyo muuqaalkanba waxayna markii ugu horeysay bannaanka keeneen ujeedooyinka rasmiga ah ee loo aqoonsanayo maamulka Hargeysa
waxay markii ugu horeysay bannaanka keeneen caddaymaha rasmiga ah ee cabdiraxmaan ciro inuu yahay ninka mashruuca yuhuudda u qaadaya geeska afrika iyo afrika keenayo waxay si cad u sheegeen in waxa la yidhahdo somaliland ay tahay israa'iisha afrika hadalkaas anigu malihi caddaymihii waa kuwan la arka Somaliland is the Israel of Africa. And we want Donald Trump to recognize your beloved country and realize in the same way Israel is the proxy deterring radical Islam in the Middle East, you are the proxy deterring radical Islam in Africa, right on the heart of the Gulf, the most strategic place possible. intaan idinla wadaagin bahasha ciro la guddoonsiiyey calaamadda la guddoonsiiyey ee shaydaanka make ifnis iyo wuxuu yahay ninkani wadaadka ah wadaad diimeedka yuhuudda ah kelmadda wadaad iyaguna way isticmaalaan pastor ayay u yaqaanaan bal intaan idinla wadaagin bal arrimaha sirdoon ee ku gadaamanay daah qaadeen in loo aqoonsaday maamulkaas Hargeysa maxay tahay kow waxay sheegeen sida aan codka idinkulaba wadaagayba in Hargeysa loo adeegsanayo wakaalad hubaysan waxay bannaanka keeneen oo meeg ifnis uu si cad u sheegay oo uu yiri Israa'iil iyo xulafadeeduba waxaan doonaynaa ayuu leeyahay in maamulka Hargeysa aan ka dhigano wakaalad proxy oo dagaaladeena xambaarta ama aan adeegsano uma aanan aqoonsan ayuu leeyahay dal xor ah waxaan u adeegsanay wakaalad hubaysan oo fulisa ama loo adeegsanayo masiirka military ee qaaradda Afrika ee ay doonayaan yuhuuddu waxaan rabnaa ayay leeyihiin haddaan macnaha fasirno in wiilasha iyo dadka isaaqa ay ciidankoodu noqdaan kuwa dhiig u daadiya danaha iyo ilaalinta Israa'iil halkii ay dawladda yuhuuddu ama maamulka dawladda yaan dhihna sorry inaan dawladda yuhuudda halka maamulka yuhuuddu uu soo diri lahaa geeska Afrika dhalinyaro iyagaan adeegsanayna uu leeyahay waxaan rabnaa uu leeyahay in gacantana loo soo galiyo Berbera waxay si cad u qireen in aqoonsigooda uusan ku dhisnayn jacayl ama taageero dimuqraadiyad waxa loogu yeeray reer galbeedku balse uu yahay gorgortan dhul raadis ah waxay rabaan in dekada istiraatiijiga ee Berbera ay ka dhigtaan fariisiin hore oo sirdoon ama forward operation base iyo mid badda ah si ay uga hortagaan xoojinta istiraatiijiyadda ee weerarada kaga imaanayo dalka Yemen iyo Iran tan waa sababta dhabta ah wasaaradda arrimaha dibadda ee Yemen ay shalay u sheegtay inay bartilmaameed military oo toos ah ay noqon doonto Berbera oo gantaaladooda ay haleeli doonaan saddex waxaan jabinaynaa ayay leeyihiin midnimada diinta iyo bulshada Soomaaliyeed waxay markii ugu horeysay bannaanka keeneen oo John Mika Ifnis Saad u yiri in aan u adeegsanayno Somaliland wuxuu ugu yeeray sidii mindi lagu jarayo jidhka ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka islaamka isagoo ku amaanay inay ka hor yimaadeen dareenkii walaalahood muslimiinta ee reer Gaza tan waxay xaqiijisay cabsida hoose ee ay dareemayaan dadkaasi in diintoodii ay bedelayo iyo caqiidadoodii uu Cabdiraxmaan Ciro bedelayo taas oo xilligan culimadii waaweyneyd sida Sheekh Mustafa iyo Sheekh Maxamed Kaariye oo markii hore si fagaara ah uga hor yimid xilligan ay wadnaha farta ku hayaan oo markaasi ay la yaaban haddaba kani waa fashilkii ugu weynaa ee soo gaaray kooxda Ciro in hortooda laga qiro inay yihiin wakaalad dagaal in hortooda laga qiro inay yihiin yuhuudda Afrika in hortooda laga qiro in aan loo aqoonsanayn maamul balse ay rabaan inay noqoto markaasi kooxadanahooda u adeego in si cad loo yiraahdo Soomaaliland haddii Israa'iil ama yuhuuddu la dagaalamaysa islaamka xaq jirka waa Falastiiniyiinta muslimiinta ah ay dhulkooda boobeen bay hadday Israa'iil bariga dhexe kula dagaalamayso yiri islaamka xaq jirka ah Somalilandna waxay geeska Afrika kula dagaalamaysaa islaamka xaq jirka ah meelo badan baan ka sibanahayo waa yuhuudda Afrika Donald Trump oo aqoonso inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un maxay ka siman yihiin marka waxay ka siman yihiin labaduba dhul aysan lahayn inay ku doonayaan inay wax ku noqdaan shimbirkiisu la dulama maqli jirtay meelo badan baan iska shabahnaa buu leeyahay waxay ka siman yihiin in iyagu ay baroortaan
oo waxa iyaga gaaray ay ku celceliyaan sanado badan laakiin si dhibta ay geystaan laba jibaarka ay geystaan ay iska indhatiraan waa dhaqanka yuhuudda ayaa haddaa wax yar xagatina gaarto bay balaa way la barortaan iyagu hadday dad badan xasuuqayaanna dhagaha iska indhatiraan waxay ka siman yihiin deegaan iyo dhul aysan lahayn inay boobaan sidaas si lamada buu yiri waa yuhuudda Afrika inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun haddaba waa kuma ninkan hadalladaasi leh waa kuma shakhsiga Cabdiraxmaan Cirre diinta ka saaray caaway waa kuwa shakhsiga arrimahan banaanka keenay ninkan waa xag jir waa qoraa waana wariye u dhashay dalka Mareykanka waana mid kamida xubnaha ugu saameynta badan caalamka waxa loo yaqaan masiixiyiinta sahnooniyiinta ah ama waxa loo yaqaan af Ingiriisi evangelical Christian Zionist wax la yiraahdo sanadkii 2015 wuxuu magaalada Qudus ku aasaasay xaruntan oo loo yaqaan Friend of Zion Heritage Center kaas oo ujeedadu tahay inuu malaayiin masiixiyiin reer galbeed ah u abaabulo taageerada Israa'iil iyo sidii Qudus loogu aqoonsan lahaa caasimadda rasmiga ah ee Yuhuudda abaalmarintan uu bixiyo ninkan iyo xubin iyo ururkiisu dadka Soomaaliyeed intooda badan uma fahansana si hoose balse halkan waxaan idin kula wadaagi doonaa markaasi ujeedooyinka diimeed ay ku qotonto sababta ay khatar dhimasho iyo mid aakhira ugu tahay qof muslim ah ujeedooyinka diimeed ee abaalmarintan caqiidada duminta al-Aqsa kooxda Christian Zionist ama masiixiyiinta Zionistiyiinta ah ee uu Mike Evans hogaaminayo waxay rumaysan yihiin in caqiidadu oranayso si uu nabi Ciise u soo laabto aakhiru zamanka waa in Yuhuuddu ay marka hore si buuxda u qabsadaan Qudus lana dumiyo masaajidka al-Aqsa si looga dhiso macbadka saddexaad ama third temple Yuhuudda xaq jirka ah ama Yuhuudda ama aan dhahay masiixiyiinta xaq jirka ah ama masiixiyiinta Kirishtaanka Yuhuudiga ah ama Christian Zionist Kiristaanka Yuhuudeed waxay aaminsan yihiin inuusan nabi Ciise oo Ilaah ka aaminsan yihiin uusan iman doonin ilaa Israa'iil ay dhulkan oo dhan la wareegto la dumiyo Masjidul Aqsa halkan laga dhiso wax la yiraahdo macbadka saddexaad ee Yuhuuddu doonayso in ay dhisaan markaas imaanaya ayay leeyihiin Masiixu Dajaal kadibna nabi Ciise uu iman doona astaantan waa muqaddisnimada Yuhuudda waxaan loo yaqaanaa menorah abaalmarintan la guddoonsiyo qofka ma ahan bilad caadi ah balse waxay u dhoodhooban tahay qaabka menorah oo ah 5 dalka 7 laan ee astaanta ugu muqaddas weyn diinta Yuhuudda shariicada islaamkuna waxay si cad u mamnuucday in qof muslim iska badaa madaxweyne inuu ku faano ama lagu sharfo astaan diimeed oo kale oo laga dhisay dabaaldega ay tahay qabashada dhul muslimiintu leeyihiin falsafada ururkan waxay ku dhisan tahay ayadoo aayado khaldan oo ay ka soo xigteen kitaabka Tawraadka oranaysa qofkii barakeeyay Israa'iil waa la barakayn doonaa qofkii lacnadana waa la lacnadi doonaa marka uu maamul muslima aqbala abaalmarintan wuxuu qiray in barakada iyo guusha laga helayo raaligelinta Israa'iil taasoo ah shirkiga ugu weyn ee siyaasadeed ama diimeed waayo qofka muslimka wuxuu rumaysan yahay in barakada iyo awooddu ay kaliya Allah subhanahu wa ta'ala u gaar tahay xiriirka fitnada dajaal sida ay culimada waaweyn ay sheegeen kana digeen go'aankani wuxuu muujinayaa ama qofka abaalmarintan qaata wuxuu muujinayaa daciifnimo caqiido oo weyn qofka maanta abaalmarintan ama astaantan qaata wuxuu burburiyay ama ka baxay gaashaankiisii caqiidada diinta islaamka wuxuuna qofkani qayb ka yahay ama uu muujinayaa in haddii dhammaadka dunida marka uu yimaado dajaal xataa haddii uusan imaan uu ka yahay uu qayb ka yahay dadka raaci doona dajaal haddaba adiga ila hadlaya haddaad ku faraxsan tahay waxaad qayb ka tahay dadka raaci doona dajaal ee ahlu naarka adiga haddaad waxaan ku faraxday ama taageersan tahay haddaad diididna waxaad tahay kuwa diiday waayo dee nimankan maxay iyay aaminsan yihin masiix waxa la yidhahday aaminsan yihin masiixuna waa dajaalul cawar ninkan u naqaano waa qofka ay aaminsan yihin marka ugu dambaysa dhammaadka dunida uu imaan doono uu markii dhib dhacdo uu badbaadin doono qofka muslimka ah ee arrintan aamina ama raaca ama bahashan la guddooma waa qof ka mida saaxiibada dajaal ama dadka raacay اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر
ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هدبا هل كامرك جوكت مرك ورميا يسوق كان هري سو ما عدا هدبا فريق في السعير وفريق في الجنة. عبد الرحمن العرية كوحديسو waxay raaceen masiix dajaal. yahuudda yay aaminsan yihiin yay sugayaan haddii muslimiintu dunidu sugayso mahdiga maxamed bin cabdullaah ninka nebiga la magac ah dhammaadka dunidu yahuudduna waxay sugayaan masiix wax la yidhaahdo rasuulka calayhi salaatu wasalaam noogu sheegay axaadiistiisii oo ah masiix dajaal. kirishtaanka dunidu yay sugayaan nebi ciise oo oran doono war anigu waxaan ahay bini aadam ilaahay abuuray ma ihi ilaah oo runta u sheegi doono oo ay alle ka aaminsan yihiin. haddaba adigu kee tahay ma waxaa tahay kirishtaanka sugi doona nebi ciise oo beentii iyo wixii ay sheegi doonaan beenin doona dhammaadka dunida ma waxaa tahay yahuudi sugaya masiixu dajaal iyo kuwa raacsan mise waxaa tahay muslim sugayo mahdiga maxamed bin cabdillaah adigay kuu tallaa kaa doran lahay wax kale meeshan ma yaalaan intaasaa la kala dooranaya waayo dad baa waxaa jira maalmihii ugu dambey lahaa siyaasadda iyo diinta ha la kala saaro culimada waaweynna waxay lahaayeen war qudus waa diin war waa diinteennii bay lahaayeen. cabdiraxmaan cirre markuu la kulmay wadaadadii yuhuudda uu qudus ugu tegey maxay ku dhaheen maxay ku yidhaahdeen maxaa loo sheegay yuhuud baa tahay kumana aanan aqoonsan waddan dantayadaan kugu gaaraynaa waxaan rabnaa wiilashiina naftiinna iyo maalkiina inaad u hurtaan danaha yuhuudda abaalmarintanna ku soo guddoon si aad uga mid noqotid dadka raaci doona masiixi dajaal. laa xawla walaa quwata ila billaahi alcaliy ilaahay diinteenna haynagu adkeeyo. allahuma yaa muqallib alquluub thabbit qalbii calaa diinik. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. إلهي مسيح الدجال في الندي ساينا قيل عليه نتنياهو يكوحدي سوحي هردعيه في الندى مسيح الدجال وحقيقة ترام يكوحدي سنة وحي هرمود أيهن كواس عبد الرحمن عري يكوحدي سنة وادتك الراعي هذا بقى سداس ويه وين علماءنا اللي قد وفيله مركب علماء مساجد كاليان هرجيس الشيخ محمد كاريه الشيخ مصطفى وحي أوجيهم وحي يلا قدس كواحدة كواحدة الدولان كوقبسة طيب أوجي وكاس عبد الرحمن عر ما هذا البلد قال لي عاود سو سعد لو قبشن سو لو ما بريرين كنتي وأرن هذه نحدنت هذا له أرنت هذا نحدنت له هذا السلام عليكم سؤال جوكتان ويحب على يد مسوكر على كذا كل وذاك